wadahadalo kadiisaha ayaa maalinimadii shalay ahayd uga furmay magaalada Djibouti ee xarunta Jamhuuriyadda Djibouti dalalka Somaliland iyo Soomaaliya. wadahadaladan oo kuwaan hore u sii shaacbixin balse kadis ku noqday bulshada labada dhinac ayaa la shaaciyay magacyada waftiyada uga qayb galaya Somaliland iyo Soomaaliya oo noqonayay madaxdii ugu sareysay labada dhinac ee waqtigan talada labada dal kala haysa. haddaba wadahadaladan oo galabta soo gabagaboobay ayaynu dul istaagi doonaa sidii loogu kala gacanta sareeyay iyo qaabkii la isku wajahay ee dunidu daawanaysay. Soomaaliya oo warbaahinteedu aad u buunbuuninaysay wadahadalada waxay sheegayeen intaanu bilaabmin ka hor hadallo u muuqday propaganda iyo khalkhalgelin iyagoo baraha bulshada ku faafinayay in laga wada hadlayo waxay ugu yeedhayeen midnimo iyo walaalnimo inkastoo hadaladani ahaayeen oo loogu meeldeeyay xukuumadda 6 bilood u harsan tahay ee Soomaaliya. haddana waxay dhanka kale shaki weyn ku abuurayeen bulshada Somaliland oo aanay dawladeedu wax badan kala socodsiin wadahadaladan ay la galayso Soomaaliya. dhinaca Somaliland bulshadu waxay saluug weyn ka qabtay waxa waqtigan lagala hadlayo xukuumadda sii dhacaysa ee aanay xataa muuqan rajo ay ku soo noqon karto mar kale ee Soomaaliya. hase yeeshee waxay arkayeen inay tahay wax dunidu dabada ka riixayso oo doonayso in isku dhageysato labada dhinac ayna gartahay in Somaliland garteeda ka naqsato fagaare kasta oo caalamiya. ugu horeyn wadahadaladan ayaa ahaa kuwii ugu horeeyay noocyada dunidu noqoto kuwa ka garnaqaysa xaaladda labada wadan. wadahadaladan hore ayaa ahaa kuwa Somaliland iyo Soomaaliya loo kala bixi jiray oo iyagu wada hadli jireen, laakiin kan shalay ayaa kaga duwanaa in dunidu dhexdhexaadinayso ay goobjoog ka tahay iskuna dhageysanayso ayna shirgudoominayaan madaxweynaha Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya, halka urur goboleedada IGAD, midowga Afrika, Mareykanka iyo midowga Yurubna goobjoogayaalka ahaayeen oo isku dhageysanayeen. ugu horeyn aan eegno madaxda iyo waftiyada labada dhinac iyo miisaanka ay kala lahaayeen xubnaha ugu muhiimsan ee meesha marayay. Soomaaliya waxa ugu miisaan cuslaa waftiga matalayay madaxweynaha Soomaaliya, ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo gudoomiyaha golaha shacabka. dhinaca Somaliland waxa marayay madaxweynaha jamhuuriyadda gudoomiyaha golaha guurtiga iyo ergeyga wadahadalada Somaliland u qaabilsan Dr. Adna Aadan iyo xubno kale oo isugu jiray wasiirro iyo diblomaasiyiin reer Somaliland. madaxda labada dhinac ayaa u muuqday kuwa kala khibrad badan, kala waaya aragnimo badan, sidoo kale u kala xogogaalsan waxa laga wada hadlayo. Soomaaliya madaxweynaheedu waxa uu ahaa qurbajoog reer Mareykan, sidoo kale aan wax badan kala socon waxa laga wada hadlayo goobjoogna u ahayn maryihii dhiiga lahaa ee labada dhinac kala furteen dhamaadkii 80meeyadii. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa isagana laftarkiisu ahaa mas'uulan haba yaraatee waxba ka ogeyn midnimadii labada dhinac wada gashay iyo jabkii ka dambeeyay xil dawladnimo oo qabtana waxa ugu horeeyay kan uu hadda hayo. sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ee dalkaasi Soomaaliya ayaa wajigiisu ku cusub yahay bulshada Soomaalida, sidaa darteed madaxda Soomaaliya matalaysa ayaa ah mas'uuliyiin aan xogogaal u ahayn, sidoo kalena garanayn waxa laga wada hadlayo, wixii dhacay, sida ay u dhaceen iyo xilligii ay dhaceen toona. dhanka Somaliland madaxweynaheeda oo waftiga hogaaminayay waxa uu ka mid ahaa halgamaayadii kala go'a keenay, sidoo kale waxa uu ka mid ahaa hogaamiyayaashii jabhaddii Somaliland ka hoos saartay gacanta Soomaaliya, wuxuuna xogogaal u ahaa dulmigii dhacay sidii labada dal u kala baxeen. gudoomiyaha golaha guurtiga Somaliland ayaa isaguna mas'uulka ugu roog cadaasan uguna daada weyn ee meesha maraya. isku biirista Somaliland iyo Soomaaliya ee 1960kii waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii dhalinyarada ahaa ee xogogaalka ahaa ee dawladii ugu horeysay ee ay Somaliland iyo Soomaaliya wada yeeshaan xilalka ka qabtay iyo agaasimihii wasaaradda waxbarashada oo Soomaaliya yeelato kii ugu horeeyay. waxa uu ka mid ahaa wasiiradii dawladii kacaanka ahayd ee markii dambena ka biyadiiday xukunkii kaligii taliya Siyaad Barre kuna biiray jabhaddii dib u xoreynta ee Sanab, wuxuuna tan iyo isku biiristii xogogaal u soo ahaa marxalad kasta oo ay wada mareen labada Soomaali ee isku biiray. diblomaasiyadda Somaliland u qaabilsan wadahadalada Dr. Adna Aadan ayaa iyaduna ka mid ahayd qoysaskii Soomaaliya ka soo arrimiyay waqtigii la midaysnaa, waxayna ahayd xaaska ra'iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii labaad ee Soomaalida, Ilaahay ha u naxariistay, Maxamed Xaaji Ibraahin Cigaal. midowgii tan iyo kala go'ay labada danna waxay ahayd siyaasiyiintii goobjooga ka ahaa iyo wasiirkii hore arrimaha dibadda Somaliland, waxayna leedahay khibrad diblomaasiyadeed oo dhaafsiisan 50 sannadood, waana mid dhammaantood ka khibrad badan mas'uuliyiinta Soomaaliya matalay. sidaa darteed ugu horeynba sidaas ayay ugu kala xogogaalsan yihiin arrimaha masiiriga labada wafti ee kala matalaya dalalka Somaliland iyo Soomaaliya. dhanka Soomaaliya mas'uuliyiinta ka socday waqtiga arrimaha laga doodaya dhacayeen waxay ku maqnaayeen dalal shisheeye, halka mas'uuliyiinta Somaliland matanaysana ka mid ahaayeen kuwii midida daabkeeda hayay ee gorgortamayay tan iyo kala go'ay. markii uu kulankii iyo shirkii uu furmay waxa hadalka isaga kala dambeeyay madaxweynaha Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya. intaas kadib waxa la gudagalay khudbadihii madax
madaxda Somaliland iyo Soomaaliya. Madaxweynaha Somaliland oo hadalka ku horeeyay waxa uu jeediyay khudbad qaadatay 17 daqiiqo iyo 35 ilbiriqsi, wuxuuna jeediyay warmurtiyeed nuxurkiisu ahaa garnaqsi Somaliland dunida u muujinaysay wixii dhacay, wuxuuna soo bandhigay sida Somaliland uga soo doogtay dhibaatooyinkii loo geystay, isagoo qodobada ugu muhiimsanaa ee ahaa dhibtii loo geystay dadka iyo dalka Somaliland carabka ku adkeeyay. hadallo ay ka muuqatay xogogaalnimo iyo khudbad si mugle loo soo diyaariyay ayuu madasha ka jeediyay. sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo ka dambeeyay looguna talagalay in Somaliland markay garnaqsato uu ka jawaabo qodobada ay miiska soo saarto. markii uu mikrofoonka la wareegay waxa uu hadlayay 4 daqiiqadood oo kaliya, sidoo kale kama hadlin nuxurka doodii adkayd ee Somaliland bedka keentay maadaama aanu xog badan ka hayn jawaabuhuna adkaanayeen. khudbadiisu kaliya waxay daaranayd mahadnaq uu Itoobiya iyo Djibouti u mahadnaqayo, sidoo kale kamuu garnaqsan midnimada Soomaaliya doonayso waxa ay u cuskanayso. sawirka ka soo baxay labada khudbadood ee labada madaxweyne ayaa u muuqday in Soomaaliya isugu biirtay xogogaal la'aan iyo wada hadallada oo aan soo diyaar garoobin, waxayna ahayd mid difaacan kari weyday qadiyadeeda midnimadoon iyo qodobada ay ku doodaan, halka dhanka Somaliland xogogaalnimo iyo dood la soo shiilay ay la shirtimi si weyn ay ugu diyaarsanayd wada hadallada, waxayna fagaarahan caalamiga qadiyadeeda uga difaacatay si mug weyn. beesha caalamka iyo dalalka dhexdhexaadinaya labada dhinacna waxay halkaasi ka qaateen musawirka dhabta ah ee dooda adag ee Somaliland iyo dooda damaca ku dhisan ee aan cagaha badan ku taagnayn ee Soomaaliya. dadka siyaasadda falanqeeya waxay sheegayaan in dowladda Mareykanka iyo Itoobiya markii hore wadeen damaca midnimadoonka ee farmaajo, balse markii la isku dhageystay qaybtii dambe ee shirka ay si weyn wax iskaga bedeleen. ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxa uu ka garaabay doodii Somaliland ee ahayd inaanay jirin wax laga wada hadlo maadaama wada hadaladii hore socon waayeen, wuxuuna Abiy Ahmed sheegay inaanay macquul ahayn wada hadallo haddii aan la fulin heshiisyadii hore. dhexdhexaadiyayaashuna waxay soo saareen warmurtiyeed u muuqda inay wax iska bedeleen oo dowladda Djibouti ku saxeexan tahay. saddexda qodob ee ugu muhiimsan ee warmurtiyeedkaasi ku jiray waxaa ka mid ahaa qaabka warmurtiyeedka dhexdhexaadiyayaasha shirka Djibouti u dhigeen. waxa uu ahaa mid muujinaya in Somaliland iyo Soomaaliya kala yihiin laba dowladood, iyagoo isticmaalaya ereyga ah wada hadallada u dhaxeeya labada dowladood. warmurtiyeedka hordhaca ahaa ee go'aanka beesha caalamku gaadhay waxa uu ahaa mid garsiinaya Somaliland oo ku doodaysa in wada hadallo dhici karin ilaa la fuliyo heshiisyadii hore ee 4 wada hadal ee hore loogu gaadhay, taas oo dunidu sideeda u meel marisay. warmurtiyeedkana ku soo dartay saddexda qodob ee muhiimka ahna waxa ka mid ahaa in la fuliyo heshiisyadii hore ee Somaliland iyo Soomaaliya wada galeen. heshiisyada hore ayay dowladda farmaajo u arkaysay in Somaliland ay dan yihiin, waana sababta ay u burisay. fulinta dunidu ku khasbayso ee waqtigana waa mid caqabad ku ah damaca dowladda Soomaaliya. sidoo kale inaan la siyaasadayn mashaariicda horumarinta waa mid ka mid ah guulaha ugu waaweyn ee Somaliland shirka ka gaadhay. farmaajo oo markasta isku dayi jiray in Somaliland uu ka cunaqabateeyo mashaariicda horumarinta iyo deeqaha caalamiga ayay dunidu ka soo ooday dibindaabiyadiisii. haddii la fuliyo qodobadii hore wada hadaladii xukuumadda madaxweyne Siilaanyo la gashay xukuumadda Sheekh Shariif iyo xukuumadii kale Xasan Sheekh oo ay ka mid ahayd in maamulka hawada Hargeysa laga maamulo, sidoo kalena Somaliland u madax banaanaato deeqaheeda iyo heshiisyada mashaariicda caalamiga, waxa isweydiin mudan waxa kale ee Somaliland ka maqan. warmurtiyeedka shalay shirkii Djibouti ka soo baxay waxa uu niyad jab weyn ku abuuray xukuumadda Soomaaliya iyo taageerayaashooda oo mar qura laga waayay warbaahinta iyo baraha bulshada oo ka hor shirka ay hadallo badan ku baahinayeen. sidoo kale waxay yaqiinsadeen in lagaga gacan sareeyay Somaliland. wajigii hore ee shirka sidaas ayay kaga gacan sareysay Soomaaliya. sidoo kale wajiga labaad ee saaka bilaabmay waxa ka hadlay labada madaxweyne ee Somaliland iyo Soomaaliya, waxayna u xilsaareen guddi farsamo soo dejinta ajandayaasha iyo qaabka wada hadallada dambe, sidoo kale ka wada shaqaynta fulinta heshiisyadii hore ee Soomaaliya ka baxday. bulshada Soomaaliya oo aad ugu hanweyneed in midnimo ka soo baxdo shirka ayaa candhuuftooda dib u liqay, halka bulshada Somaliland iyadoo isku duuban ay baraha bulshada iyo goobaha dadku isugu yimaado ku falanqeynayeen guusha Somaliland Djibouti ka soo gaadhay. inta badan bulshada Somaliland ayaa midnimo muujisa maalmaha adag. asxaabta siyaasadda iyo saxafiyiinta Somaliland ayaa dhinacooda hambalyeeyay guushii Somaliland ka gaadhay wada hadaladii Djibouti uga socday Somaliland iyo Soomaaliya. warmurtiyeedu soo saaray ururka ay ku midaysan yihiin saxafiyiinta Somaliland ayaa lagu sheegay inay hambalyeynayaan gacan sareynta Somaliland ee shirkii Djibouti. sidoo kale dadka caanka ah ee ka hadlay waxaa ka mid ah abwaanka Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax oo ka mid ah haldoorka abwaanada waqtigan ee Soomaalida, sidoo kalena halabuurka waqtigan geyiga Soomaalida ugu caansan jiilkiisa ayaa sheegay inay tahay waqtigii la iska kala tagi lahaa ee la kala bixi lahaa. guud ahaan goobaha bulshadu ku kulantay magaalada Hargeysa waxaa lagu falanqeynayay
maanta sida Somaliland ugaga adkaatay Soomaaliya fagaaraha caalamiga ah ee la isku dhageysanayay. Waqtiyada nasashada loo soo baxayay labadii cisho ee shirku socday ayaa la arkayay diblomaasiyiinta adduunyada matalaysay oo ku xoonsan Dr. Adna Aadan una khushuucsan taariikhaha Somaliland iyo xaqaa'iqa la wadaagaysay oo muuqaal ka inay xiiseynayeen inay ka faa'iideystaan waayo-aragnimadeeda. sidaas ayuu wajigii labaad ee shirku ku soo dhamaaday. wadahadaladana waxa isla silafaguri doona waqtiyada ay dhacayaan iyo fulinta heshiisyadii hore gudiyada farsamada ee labada dhinac ay u saareen. wafdiga Farmaajo ayaa goor dhaweyd waji gabax kula noqday Muqdisho, halka wafdiga dowladda Somaliland bulshadu u diyaarinayso soo dhaweyn diiran oo ay ku qaabilaan.